magaaladan aadka u yar waxaa ku noolaa hooyo iyo aabe iyo wiilkooda. Hooyadu waxay aad u jecleed wiilkeeda. Wiilka waxaa la oran jiray Axmed, hooyadana Ciza, aabahana waxaa la oran jiray Cabdul. Maalin ayay hooyadu iska dareentay in ay xanuun qabto, xanuunkaasna uu yahay mid aysan ka kici doonin oo uu yahay midka ay dinudani uga tagi lahayd oo ay u faaruqi lahayd. Sidaa daraadeed waxay aad u jeceshahay wiilkeeda Axmed. Wiilka Axmed ayay rabtay inay aabaha kala dardaaranto oo ay u sii sheegto wax kasta uu qaban lahaa. Waxayna u yeeratay ninkeedii oo ku tiri sida tan: waxaan kaa doonayaa inaad ii daryeesho wiilkeeni yar, sababtoo ani waxaan qabaa xanuun aanan ka kici doonin. Wuxuu yidhi, sidaas ha dhihin, cunugana waa isla wada daryeelaynaa, adna ma dhimanaysin oo waad noolaanaysaa insha Allah. Ilaahayna labadeena wuxuu noo qadarayaa inaan labadeena cunuga wada daryeelno. Isla markiiba habartii way xijaabatay. Axmed iyo Cabdulna bartaasi oohin ka bilaabay. Aba Cabdul aabihiis ayaa kula taliyay inuu guursado xaas cusub si ay wiilka ugu daryeesho. Wuxuu guursaday xaas cusub. Maalintii dambe markii guriga loo soo guuriyay ayay waxay bilowday inay wiilka ula dhaqanto si xun. Waxayna ku dhahay jirtay sida tan: waryaahe, waxaad qabanaysaa shaqada oo dhan, haddaad meel khaladidna iska ilaali, waxaad arkaysaa xanaaqayga iyo dabeecadayda oo dhan. Carada tirtir oo nadiifi, weelka dhaq, meel kasta samee, haddaa khaladidna waa i taqaanaa. Hadduu meel yar khaldo waxay u garaaci jiray si arxan daraa oo way dili jirtay. Axmed eedadiis maalintii dambe waxay dhashay wiil. Wiilkaas waxay u jecleyd si saa'ida ama si xad ka dhaafsan. Had iyo jeerna waxay wiilka u dhiibi jirtay Axmed oo Axmedna u daryeeli jiray maadaama uu yahay walaalkiis ka yar. Maalin maamada oo dhabta ku haysa wiilkeeda yar ayaa ku ooyay, waxayna ku tiri sida tan: waryaha Axmed, kaalay wiilka qabo, si iina aamusi. Axmed wiilkii ayuu qabtay, laakiin si kadiisa dhulkii ayaa uga dhacay. Wiilkuna wuxuu bilaabay inuu ooyo. habartii amase eedadii arxanka darneed oo xaasiyada ahayd ayaa dil xaasnimo ah ku bilowday Axmed ilaa uu afka dhiig kaga imaado. Axmed wuu iska ooyay, wuxuuna soo xasuustay hooyadiisa oo kalkoorin jirtay. xaaskuna maalin dheeri ayay dili jirtay oo marka ay ku aragto wax qalada asaguna wuxuu qaban jiray shaqadii loo diro oo si adoon camal ah ayuu ugu shaqayn jiray. balse Axmed niyada kamuusan jabin, wuxuu ahaa wiil jecel inuu wax barto. iskuulkiisa ayuu jeclaa, xilliga uu ka imaadana guriga ayuu ka shaqayn jiray. maalin Axmed oo sheekh wada ayaa waxaa arkaya aabihiis, balse waxba ma uu dhahayo. Axmed si xun ayay ula dhaqmi jirtay eedada arxanka daran leh, wayna bahdili jiray oo dili jirtay Axmed, balse aabihiis uma sheegayo, wuuna iska aamusaya, wuuna dul qaadan jiray. markasta qolkiisa ayuu aadi jiray oo murgoon jiray oo dhihi jiray haddii hooyadii noolaan lahayd sidaan iliimad galay lahayn. maalin Axmed oo jikada kasoo diyaariyay quraac ayaa waxa uu ku talaaraxayaa ama ku siibanayaa biyo yaalay barandada, balse alaabta ayaa jajabaysaa. xaaska ayaa dhahaysaa, waryaahe baastariyo maxaa jajabisay wasakha. Axmed oo arrinkaas maqlay ayaa cararaya oo guriga kasoo baxaya, wuxuuna aadayaa banaanka. habartii ayaa dhahaysaa, waryaha Axmed kaalay, balse waxay ogaanaysaa inuusan joogin, wayna baaraysaa. sanado badan oo lasoo dhaafay, eedadii arxanka darneed ee xaasiyada ahayd way gaboobaysaa. aaba Cabdulna dunida iskaga tagayaa. wiilkii yara oo Axmed la oran jirayna wuxuu helayaa shaqo, wuuna guursanayaa. maalin maalmaha ka mid ah ayay duqidii ku dhahaysaa gabadhii uu qabay Axmed, naaheedhe ma shaqada guriga qabateen. gabadhii ayaa xanaaqaysa oo u imaanaysa ninkeeda oo ku dhahaysa sida tan: Axmed, hooyada maalin dheeli si xun ayay ila dhaqantaa oo tiraahdaa guriga kaga shaqee, ma ana jaariyada mise iyada jaariyada.
labadeena mid ayaa ka tagaya ama ayada amse aniga labadeena mid kala dooro. wuxuuna ku dhaxayaa xaaskayga ismurjin. guriga adigu waa joogaysaa, boqorna ayaa tahay. ayada ayaan ka kaxinayaa guriga.